kadambeeya inuu waxyiga go'aayo shaygaa la qiyaar geliyey iyo qofkaa la qiyaar geliyeyna inuu rasuulku yahay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. rasuulku wuxuu kaloo yidhi albaab walba ama khawqo walba iyo duleel walba oo masaajidka ku yaala dhammaan ha la soo wada xiro ilaa baaba abibakar. abubakar albaabkiisa maahane, war abubakar albaabkiisa ha la dhaafo, inta kale ha la xiro kuwa masaajidada ku yaala ama masjidka ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. ninka igu mana sheegasho badan xoolihiisa iyo wixiisa ii huray waa abubakar ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. wallaahi ilaahay wuxuu ii diiday axad idinka mida inaan saaxiib ka dhigto, ee haddii lay ogolaan lahaa oo qof aan saaxiib ka dhigan lahaa abubakar ayaan saaxiib ka dhigan lahaa ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam. laakiin ilaahay ayaa aniga saaxiib iga dhigtay sida ibraahiimba ilaahay uu khaliil uga dhigtay subxaanahu wa tacaala. haddaba albaab walba oo abubakar oo masaajidka ku yaala ha la teedo, ha la xiro, ha la soo shiro ilaa baabkii abibakar maahane radia allahu tacaala canhu. haddaba abubakar maalintaa oohin cajiib badan ayuu ooyey, maalintaa ummadda waa ka yaabiyey, waxaysan dadweynaha kala samaynin ayuu sameeyey abubakar radia allahu canhu. xaalku markuu meeshaa maraayey rasuulka ixtidaarkii ayaa ku bilowday ama sakaraadkii ayaa nebiga ku bilowday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. guriga ayuu joogaa, caaisha aad iyo aad ayay uga sheekaysay, ileen ayadaa goobjoog ahayd markuu rasuulku sakaraadaayey. waxay tidhi markaan arkay sakaraadkii nebiga sakaraad kale oo ka dambeeya kama nixin kamana cabsanin ayay tidhi radia allahu tacaala canhaa. rasuulka sala allahu calayhi wasalam ixtidaarkii ayaa ku bilowday, waqtigii geerida ayaa ku bilaabatay. rasuulku wuxuu ku jiifay ayay tiri dhuuntayda iyo xabadkayga inta u dhaxaysa, koombe biyo ku jirta oo meesha yaala ayuu gacanta gelinayey, markaasuu wejigiisa marinaayey asagoo dhahaya inna lilmawti la sakaraat. geeridu sakaraad xanuun badan ayay wadataa oon loo adkaysan karin. allaahumma acinnii calaa sakaraati almawt wa ghamaraati almawt ayuu dhahayay nebiga. ilaahu iiga kaalmeey geerida xanuunkeeda, sakaraadka xanuunka uu leeyahay ilaahayow iiga kaalmeey ayuu dhahayay ayay tiri caaisha. rasuulku gacanta ayuu boombada gelinaa, waa ku soo qaadaa, wejiga ayuu marinaa. sakaraadku waa shay aad iyo aad u dhibaato badan. rasuulku wuxuu yidhi qofka inuu jannada galo oo jannada u tilaabsado dhowr buurood ayaa ka xigta, midda ugu sahlan waa sakaraadka. allahu akbar, inta kale waa ka culus tahay waana ka dhibaato badan tahay ayuu dhahay sala allahu calayhi wasalam. ummaddii maanta waa hurdeen, waxay hilmaameen sakaraadka iyo xanuunkiisa, waxay hilmaameen dhimashada iyo geerida, waxay hilmaameen dhibaatada naga horaysa, waxay hilmaameen ixtidaarka, waxay hilmaameen kurbada nebiga saa u daboolaysa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. allaahumma acinnii calaa sakaraati almawt. ilaahayow meydka sakaraadkiisa iiga kaalmeey. meydka sakaraad ayuu wataa oo dhibaato badan oo aad iyo aad u culus ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. sida ilaahay tilmaamay subxaanahu wa tacaala waxaa yimid sakaraadkii geerida wadatay. war aad iyo aad ayuu u dhibaato badan yahay. ummadda sakaraadaysaa waa aragnay. war noloshu qiime iyo wanaag male haddii nebiga dhimanaya sala allahu calayhi wasalam. war nolosha wax laysku dhejiyaa ma aha haddii nebi moxamed uu sakaraadaayo salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. noloshu faa'iida malaha, maaha waxaan isku dhejino, maaha waxaan aakhiro u beelno, maaha waxaan u hilmaamno ilaa subxaanahu wa tacaala diintiisa, balse waa waxaan xaq u raacno oon ugu kaalmaysana ilaahay diintiisa subxaanahu wa tacaala. ixtidaarka ayaa rasuulka ku soo xaadiray, geeridaa ayaa xanuunkeeda u yimid. rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi wuxuu doortay rafiiqa sare. allaahumma rafiiqa alaclaa ayuu yidhi, allow waxaan dooranaa rafiiqa sare. caaisha markuu sidaa yidhi waa isku naxay ayay tiri, waxaan ogaaday inuusanna dooranin maca aladiina ancama allahu calayhim
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سدا أيو دحي صلى الله عليه وسلم وميلها أوربي إن لجيو وميلها لربي إن رسولك لجيو مع ذلك إلهي أنا أنت من ربي أيو يري رفيق سر أيان ربا إلهي رفيق سر أيان دورنا احتضارك أيان نبيك كسو حاضري حنونك مربا مركا كدن بيس واكو زياداي واكو سو بدناي صلوات الله وسلامه عليه عائشة waxay tiri rasuulka oo sidaa ah ayaa waxa ii soo galay wiilka la yiraahdo Cabdiraxmaan ibn Abi Bakar waa walaalkeed wuxuu watay oo gacanta ku watay rabbi ama siwaak ama caday qoyan ayay tiri rasuulkana cadayga aad iyo aad ayuu u jeclaa rasuulku rumiga inuu jeclaa ayaan ogaa waayo nabiga mar alla marka uu guriga soo galo oo gurigiisa yimaado kaana badaa bisiwaak cadayga ayuu ka bilaabi jiray meesha aan tubaakada iyo sigaarka ka bilowno markaan gurigeena soo galno rasuulku cadayga ayuu ka bilaabi jiray mar alla markuu leylkii habeenka soo kaco yashuuzu faahu bisiwaak afkiisa waxa uu ku daliigi jiray oo marmarin jiray cadayga salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku sidaa ayuu ahaa nebiga aad ayuu cadayga u ammaanay rasuulku aad iyo aad ayuu cadayga u ammaanay wuxuu yidhi siwaaga iyo cadayga waa shay afka tahiriya ilaahayna raali geliya subxaanahu wa tacaala rabbi ayaa jeclaada malaa'igtiisa ayaa jecel afka ayuu carfiyaa wanaag ayaa laga helaa iyo qiimo aad iyo aad u qiimo badan rasuulku habeen ayaan seexday ayuu yidhi waxaan ku riyooday anigoo caday haysta laba nin ama laba qofood ayaa ii timid midkood ayaa kan kale ka weynaa waa riyo cadayga ayaan u dhiibay kii yaraa markaasaa laygu yidhi weyneey oo qofka weyn ku bilow cadayga qiimo weyn ayuu ka joogaa ama ka joogaa diinta islaamka laakiin anagu ma fahamsanin waxaa laga yaabaa waxyaabo fara badan inaan ku bedelana maanta haddaba rasuulku cadayga aad iyo aad ayuu u jeclaa waana ogaa ayay tiri waxaan dhahay rasuulkii allow makaaga soo qaadaa rumayga rasuulku haa waa dhihi waayey laakiin madaxiisa ayuu ii ishaaray ay nacam haa oo kale ayuu madaxiisa iigu tilmaamay sakaraad waayo haa waa dhihi waayey waa awoodi waayey salawaatullaahi wasalaamuhu calayh inuu haa yidhaahdo ilaa inuu madaxiisa ii ishaaro oo ii tilmaamo maahane waa u soo qaaday ayay tiri waa u calaliyey oo waa u jilciyey waana u nadiifiyey ka gada rasuulka cadayga ayaan u dhiibay tiri caaisha ma arkin maalintaa sida uu cadaysaday nebiga maalin uu kaga cadaysi fiicnaa aad iyo aad ayuu maalintaa nebiga u cadaysaday waa ku dadaalo afkiisa waxa ugu dambeeya waa rumay waxyaabaha uu ku sameeyey hadallada afkiisa ka soo baxaya waa kelimaadkii ilaahay waa tuugma ilaahay waa barya alle waa kelimadii tawxiidka waxa afkeena ugu dambeeya waa sakareedka iyo qaadka asagoo nagu jiraan ku dhimanaa waa tawfiiq xumo waa khaatima xumo rasuulku waxa uu ku qatimay waa cadayga ee fiiri waxa uu ku qatimay oo gebagabadiisu ay noqotay waa cadayga annagoo xaaraanta ku dhex jirna oo ilaahay diintiisa caynayna oo cankeena uu qaad ka buuxo oo afkeena sigaar uu ku jiro oo dhinacyaalkeena gabdhaha xaaraanta rabbi diiday ku socda diinta alla aan ogolayn rabbi xaqiisa aan fulinayn taariku salaadiinta ah ejiyooyinkooda rijiga iyo waxyaabaha kala u marsan bahaaraadka aan aqaanin rabbigood aan kasayn anagoo dhexda uga jirnay geeridu noo imaanaysaa haddaanan ka tooba keenin waxaan maanta ku jirno war ku daysada nebiga sala allahu calayhi wasalam war haddii asaga dhintay qof noolaanayaa ma jiro wallaahi gadaashiisa xayaatada qiimo male rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa lagu yidhi innaka mayitun wa innahum mayituun adi waa dhimanaysaa iikuna way dhimanayaan uma innakum intaa ka bacdi adinka marka aad soo dhimataan alla agtiisa qiyaamo marka la gaaro cinda rabbikum takhtasimuun rabbigiin agtiisaaad ku doodaysaan ayuu yidhi ilaa subxaana wa tacaala haddaba
رسولك وادمنا هبكو ادمنا يفيري ورحنونك اوسو مر يفيري ورسكرات كسارا فيري رسولك صلوات الله وسلامه عليه عذقي ايو ايغا قاتي ايي تيري رسولك وارميستي من اركن مال انتاسو عذي صدي عذي او كغا قيمة ايا وناك بطنا انتا كقدال ايا النبي قعنتيس اما فرتيسو كور اتاقي اللهم رفيق الاعلى ايو يري الله وحان دورتي رفيق السرع عايشة وحيتي الرسول كنا مدورن رسول كوانا قتقي ربا صلوات الله وسلامه عليه رسول كوانا قد من ربا صلى الله عليه وسلم انتا كقدال ايا النبي وحد عضي الي اندي سكر اذين intaa ka gadaal waxaa dhacday gacantiisii rumayga uu ku haystay inuu soo dhacay intaa ka gadaalna xayaatadii ka baxday salawaatullaahi wasalaamuhu calayh rasuulku oo sidaa u dhintay caaisha aad iyo aad ayay maalintaa u murugootay laakiin waxyaabaha wanaagsan ay heshay waxaa ka mid ahaa inay tiri rasuulku wuxuu dhintay maalintii tookada aniga aan lahaa waxa uu ku dhintay gurigayga waxa uu ku dhintay sadrigayga iyo laabtayda inta u dhaxaysay waxa ugu dambeeyeyna waa riiqdiisa iyo riiqdaydo isgaartay ilaan cadaygii ayay u calalisay asagana waa ku rumaystay arrintaa waa qiimo iyo sharaf gooni ah oo ay caaisha dheer tahay dadka oo ay leedahay ilaahayna ku manaystay subxaanahu wa tacaala haddaba rasuulka salawaatullaahi wasalaamuhu calayhi sidaa ayuu u xijaabtay uuna u dhintay markii xaaladdu meesha ay martay ummaddu aad iyo aad ayay u wareereen waxaa hasiibtay kurba aad iyo aad u adag war dadkii waxaa asiibay dahshi iyo wareer adag cumar ibni khitaab ninka la yidhaahdo waxa uu soo qaatay seef wuxuu soo galay masaajidka ummadda ayuu isu keenay wuxuu yidhi nebi moxamed ma dhimanin wallaahi inuusan dhimanin ayuu yidhi balse waa baxay oo alla agtiisa ayuu aaday sidii muuse ibni cimraan uu u baxay sida uu muuse u soo noqday oo kale ayuuna u soo noqon doonaa nebi moxamed dhiman maayo ilaa in munaafiqiinta iyo dadka alla diintiisa diiday iyo dadka dhahay nebigu waa dhintay ilaa gacmaha iyo lugaha uu ka googooyo cumar maalintaa waa iscelin waayey cumar wuxuu ahaa nin adag wuxuu ahaa nin kakan wuxuu ahaa nin karti leh laakiin maalintaa waxbaa ka tambadiyey rasuulkaa dhintay salawaatullaahi wasalaamuhu calayh taasaa cumar jilcisay oo xaaladaa inuu arrintaa yidhaahda ku kaliftay ummaddu way wada fadhiyaan cumar ayay dhegaysanayeen qof hadlaayaa ma jiroon cumar ahayn seeftuu wataa ummadduu ku dhex wareegaa wallaahi qof dhihi karaa ma jira nebigaa intuu leeyahay rasuulka sala allahu calayhi wasalam asagana go' diirdiir ma leh ayaa lagu duubay oo uu ku daboolan yahay abuubakar ma joogin waana maqnaa asagoo gaadiidkiisa saaran ayuu yimid masaajidka ayuu soo galay cidna lama hadlin intaa ka gadaal waa baxay meydkii nebiga meesha uu yaalay ayuu galay abuubakar wejiga ayuu ka feeday rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxa uu ka shumiyey labadiisa indhood inta u dhaxaysa abuubakar nebiga ayuu ka shumiyey markaasuu yidhi biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay ayaan kugu furtaye laba geeri alla ku dhadhansiin maayo geeridii xaqa ahayd ee rabbi kuugu talagalayna way ku asiibtay wayna kuu timid wax ka caraf iyo udug badan ma jira ayuu yidhi xayan wa maytan geeri iyo nolol labadaba sidaa ayuu tilmaamay rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu ku yidhi abuubakar maxaa ka caraf badan oo ka udug badan rasuulka marka uu dhintay iyo markii uu noolaa labadaba abuubakar waa u daboolay rasuulka wejiga ka gadaal waa soo baxay cumar ayuu u yimid markaasuu dhahay ijlis yaa cumar cumarow fadhiiso war cumarow ummadda ka dhaaf waxa aad ku wadda ee fadhiiso cumar waa diiday inuu fadhiisto abuubakar warkiisana uu yeelo abuubakar meel geesa ayuu istaagay markaasuu iftitaax furtay wuxuu ku iftitaaxday waxyaabaha ducooyinkii muxaadarooyinkii wacdiga lagu furfurto intaa ka gadaal ummaddii way ka soo tageen cumar waxaa loo yimid abuubakar cumar keligiis oo meesha fadhiyaa looga soo tegey waxaa loo yimid abuubakar
أبو بكر وحيري من كان يعبد محمدا قف والباء محمد عابد جري فإن محمدا قد مات. محمد واتنتي قفكيس إلهي عابد جري فإن الله حي لا يموت. إلهي الحي أهواي أندمني سبحانه وتعالى. إلهي مدمناي وباقي وحاد انتي نبي محمد إنكي محمد عابد جري وإن الله لا انت نبي نولا كلي ربي إنو دين تراعو ربي إنو كو عمل فالو. محمد واد انتيها أغادو قف والبا إلهي عابد جري وألا كدنبي ودين تراعي ألا درتي. إلهي مدمنايو مندي من جرين حدنا مدمنايو مندي من دون سبحانه وتعالى. باقي أيو أهانا شيء والباوي هلاك سمايات إلا أساق ماهاني مركي سيدا وير أبو بكر وحو أقريي وما محمد إلا رسول. محمد معها إلا رسول ماهنا وحكاله. نبي محمد ورسول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أسقهرتيس الرسل أي تكتي أفإن مات أو قتل هدي انت النبي محمد أمل الديلو موحد انقلابيسان وتقدو ميسان إربهين ومن ينقلب على عقبيه والنبي هدو انت قف الله لقركي إربه سأردوبة قفكي ميشوكي من اللابتا قفكي معاسدي وكجري جري النقضة شركي إيا قال لماذي أسنام عبدتانكي وكجري قفكي النقضة هأقاذ فلن يضر الله شيئا. الله وحوك إمي كرام مجرو الله وحوك إماي أما كنسخة منا يا مجرو وسيجزي الله الشاكرين. إلهنا شاكرين تواء أبا القذى سبحانه وتعالى. آياداس أيو أبو بكر أخريي مركي أبو بكر آياداء أخريي أمد وحد ليسا مالنتا إني آياد مالنتا سودكتي. أبي بكر أفكيس أيك لكل من أحد مجرين إلا آيادي أيو أخريي ماشا أيو نكدقاقي وحا حقيق نقطي أي أغاذين إنو نبي قد انتي. عمر مالنتا وحويري أنيقو ما أهين نيقين صدي أو قلبي جيس أي صوق شيء دهشيق إيو وريرك إيقو نعي درتي إلا أبو بكر آياداؤك أخريي. عمر وإسئل وايي لغيه صدلك واكو أتكين وايي. عمر وإسئل وايي إلا أسغنا استاقك دعي رضي الله تعالى عنه. هذا بحالة مركي ميشا مريسي رسولك صلى الله عليه وسلم مال إسنيناتنا أي تهي oo bisha rabiicul awal 12 ay tahay ayuu rasuulku xijaabtay salawaatullaahi wa salaamuhu calayh in allaala intaan la duugin nabiga oo aan loo gudagelin duugidiisa waxaa wax yar khilaafa ka dhacay muslimiinta dhexdooda. qofkii khilaafada loo dhiibi lahaa qofkii khilaafada asaga markaa qaban lahaa aad iyo aad ayaa loo falanqeeyey. waa la isugu yimid waxaa lagu dadaalaa oo laga shirayaa fiiri waxaa laga shirayaa ummadda see loo hogaamiyaa. war rasuulkeennii tegay saynan diinta u baabi'in yaa booskiisa buuxin kara war yaan asaga ku bedelnaa. xaaladda noocaasa ayaa laga fikiraa xaaladda noocaasa ayaa laga shiraa xaaladda noocaasa ayaa lagu degdegaa. inta waxaa laga qaadanaa diinta islaamku inay tahay diin nidaam ah oo nidaam ku dhisan. qofkii maanta naga dhinta qofkii maanta naftu ay ka baxdo wixii wanaag ahaa ee la samayn lahaa oo diinta alla qabtay intaan la fulinin intaan agoontii uu ka tegay wanaagoodii laga shaqaynin gurigii ay degi lahaayeen la fiirinin ayaa suuqa xoolaha loo ordaa. naf go'daa naf lala gooyaa ayay dadku aaminsan yihiin. naf allaala naftii la gooyo waa in naf kale loo gooyaa. war xaaladdu sidaa ma aha. waxaa aad iyo aad u wanaagsan oo u qiimo badan inay dadku raacaan waxyaabaha rabbi amraya subxaanahu wa tacaala. rasuulku mar allaala markii sidaa uu u dhintay asxaabta waxay xoogga saareen hogaaminta siday ku socon lahayd. abibakar ayaa loo doortay inuu asaga xilkii hogaaminta qabto booska nebiga uu gala sallallahu calayhi wasallam.
ayadoo weliba ishaaraad kalena ay jireen oo laga fahmi karo inuu abubakar isagu leeyahay xilka marka uu nebigu dhinta ka gadaal. xadiiskii hadda aan tilmaannay ee nebiga uu yidhi albaab kasta ha la xiro ilaa baabkii abibakar, waxaa laga qaadanaa inuu nebigu ku xigi doono. rasuulka oo nool ayuu abibakar dujiyey. meesha waxaa laga qaadanaa hogaaminta inuu asagu leeyahay. intuu nebigu noolaa ayaa naag u timid rasuulka, dana iyo arrin ay wadatay ayuu la xalliyey. waxaad ii timaadaa yoom fulaan ayuu ku yidhi. gabadhu waxay tiri rasuulkii allow haddaan kuu imaado oon ku waayayaan u tagaa. abibakar u tag ayuu yidhi sala allahu calayhi wasalam. abubakar u tag ayuu yidhi nebiga. waxaa laga fahmayaa ishaarooyin badan oo abibakar inuu hogaaminta leeyahay ay xaaladaa tilmaamayso. rasuulka sala allahu calayhi wasalam intaa ka gadaal waxaa la gudagalay in qasli lagu sameeyo oo markaa la dhaqo. waxaa laysu khilaafay sidee nebiga u dhaqnaa. anujarid ma dhardhigaynaa rasuulka ilaahay sida mawtaadkeena aan u dhardhigna oo kale, mase asagoo dharkiisa qaba ayaan dhaqnaa. usaama ibnu zayd, cali ibni abi taalib iyo ninka la yidhaahda fadl ibni cabbaas iyo rag kale ayaa ka qayb qaadanayay oo rasuulka dhaqayay sala allahu calayhi wasalam. xaalku markay meeshaa maraysoy arrintaa isu khilaafeen, xadiisku wuxuu tilmaamay in wax yar oo hurdaan lagu salliday. meel aysan ogeyn ayaa lagala soo hadlay oo la yidhi dhaqa nebiga asagoo dharkiisa qaba salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. rasuulku way dhaqeen, asagoo dharkiisa qaba ayay ku dhaqeen. rasuulku waa la karfanay. waxaa lagu karfanay 3 dhar, 3 maro oo cadcad ah oo suxuulin loo nisbeeyey oo suuf ka samaysan oo qamiis iyo camaamad aan ku jirin sida xadiiska tilmaamay. maca daalika rasuulka 3daa maro ayaa lagu karfanay. caaisha waxay tiri wixii aan gadaal ka xasuustay haddaan horay ka xasuusan lahaa nebigu ma dhaqi lahayn ilaa naagihiisa maahane salawaatullaahi wasalaamuhu calayh. waayo waa ii dardaarmay oo waxaan ku dardaaranay haddaan hortaa dhinta idhaq ayuu yidhi, haddaad hortay dhimatana waa ku dhaqaa. meesha waxaa laga qaadanaa wax isdhaqi kara oo ajnebi kala ah oo nin iyo naag kala ah waa zawj iyo zawjadiisa. mar allaala marka nin dhinto nin rag keliya ayaa dhaqee, dumar maya. hadday naag dhimato saasoo kale naaga ayaa dhaqee, rag maya. maca daalika qofka haddii haween iyo rag ay kala yihiin wax isdhaqi kara waa nin iyo naagtiisa. abubakar markuu dhintay naagtiisa ayaa dhaqday, waa asmaa binti cumays. cali bni abi taalib faadima ayuu kula dardaarmay qofkii markii hore dhinta inuu markaa dhaqo. caaisha waatay leedahay rasuulku waan ku heshiinay haddii qofkeen ka hore dhinta inuu ka kala markaa dhaqo. haddii qofka hooyadiis ay dhimato ma dhaqi karo, walaashiis hadday dhimato saasoo kale. zaynaba binti rasuulillah markay dhimatay rasuulka oo taagan oo jooga ayaa waxaa dhaqay gabdha saxaabiyaad ah. ummu cutiya ayaa ka mid ahayd naagihii dhaqaayay. rasuulku wuxuu noo yidhi ayay tiri dhaqa 3 mar ama 5 mar ama 7 mar haddaad u aragtaan inay wasaqdu ka bixin. intaa ka gadaalna madaxeeda wanaajiya oo timaheeda 3 qaybood ka dhigee gadaal u tuura. mar allaala markaad dhaqaysaan ka bilaaba makaanka waysaqaadka iyo amaakinta laga waysqaatiya dhinaca midigta ayuu noo yidhi ayay tiri ummu cutiya radia allahu tacaala canhaa. mar allaala marka aad faaruqi rabtaan oo aad dhammayn rabtaanna akhiiran iyo gebagabadii kaafuur ugu dara biyaha iyo shay markaa udgaaya ayuu noo yidhi ayay tiri ummu cutiya. haddaad faaruqdaan oo aad dhammaysaanna isoo ogaysiiya. waa dhaqnay sidii nebiga noo amraan u dhaqnay, ka gadaalna waan ogaysiinay. wuxuu noo soo dhiibay hoos guntigiisa la xiriiriya midkaan intaadan karfanta gelinin ayuu noo yidhi ayay tiri ummu cutiya. meesha waxaa laga fahmayaa nebigaa taagnaa, waa gabadhii asaga uu dhalay, dumar ayaa markaa dhaqay. haddaba rasuulka caaisha sidaa ayay tiri.
maalintaa isniinta uu dhintay maalintii talaado mar allaala markii la gudagalay in rasuulka la dhaqo oo dhaqitaankii la dhameeyey waxay dheheen rasuulka godkeen u qodnaa godka luxdiga maan u qodnaa midka shiqi mise midka shiqiga la yidhaahdo midka luxdiga waa midka dhulka cad adag ama dhulka dhoobeyda laga isticmaalo midka kalena dhulka jilicsan ayaa laga isticmaalaa laba nin ayaa kala qodi jirtay adeeg ayaa loo diray kii soo hormara ayaa godka u qodi doonaa la yidhi abi talxa u soo hormaray oo godka luxdiga markaa qodi jiray waxaa lagu murmay xaggee nebiga ku duugnaa salawaatullaahi wasalaamuhu calayh mar allaala markii arrintaa laysku qabtay abubakar wuxuu yidhi rasuulka allah ayaan maqlay asagoo dhahaya nebi ma jiro ilaa meeshii uu ku dhintaa lagu duugaa isla markii abi talxa firaashkii ayuu ka leexiyey meesha ayuuna u qoday waa xijrigii iyo qolkii caaisha meesha ayaa loo qoday rasuulka oo arrintaa iyo godkaa looga qoday intaa ka gadaal ayaa waxaa dhacday inay ku gaartay habeenkii arbacaad rasuulka salaadii janaasada waa lagu tukaday weliba dadka hal iyo irsaal ayay u tukanayeen oo cid kale imaam u noqotay ma jirin haweenka siqaasa ayay u yimideen oo ay ku tukadeen ilmaha saasoo kale rasuulka mar allaala markii arrintaa loo dhameeyey ayaa waxaa la gudagalay in markaa la duugo rasuulka waa la soo qaado waxaa lagu duugayay meeshii loogu talagalay caaisha waxay tiri habeen ayay ahayd anagu ma ogaanin duugista nebiga ilaa sawdka ayaanbada iyo waxyaabaha kale maqalkooda maahane sidaa ayaan ku aqoonsanay oo aan ku kasnay sidaa ayaan ku fahamnay ayay tiri mar allaala markii laga soo noqday faadima binti rasuulillaah ayaduna aad iyo aad ayay u qayliso waxay tiri aabbaheeyow ajaaba rabban dacaa rabbigii u yeeray ajiibayow aabbahay oo jannatulfirdowsa ma'widkiisa ahaydow aabbahay oo ilaa jibriila nancaa jibriil qabargeeriyaadkiisa aan u sheegaynayow mar allaala markii la duugay oo aasitaankiisa uu dhammaaday faadima waxay tiri aanasow ma idinla wanaagsanaatay inaad rasuulka carra ku shubtaan salawaatullaahi wasalaamuhu calayh anas wuxuu yidhi maya annaga nafteenna nafsadeenna tiib kama ahayn laakiin waa shay aan la huri karin wax aan la huri karin waaye xaaladda noocaas ah ayuu yidhi anas radia allahu tacaala canhu haddaba rasuulku mar allaala markii uu dhintay oo xaaladaa la sameeyey oo sidaa loo duugee la aasay dadka muslimiinta ah wax allaala wixii diin ah way ku socdeen way xoojiyeen inay ku socdaan oo ay ku dadaalaan nebiga meesha uu ku duugnaa ama lagu duugay laba makaan ayaa ka bannaanayd abibakar markuu dhintay makaankii labaad ayaa lagu duugay hal meel ayaa harsanayd meeshaa harsaneed cumar ibni khitaab radia allahu tacaala canhu waa tii la dilay ee ninkii majuusigee abulu'lu almajuus la yidhaahda uu dilay cumar ibni khitaab salaadii subxeed ayuu dadka dujinaayey suuratu yuusuf ama racdi ayuu aqrinaayey sida xadiiska tilmaamay intaa ka gadaal ayaa ninkaa majuusigaa soo galay masaajidka mar allaala markuu safka la soo sinmay ayaa tooreydii uu watay cumar uu ku dhuftay cumar mar allaala markii mididii ay gaartay wuxuu yidhi ma waraabay cunay mase waa lay dilay ibni cabbaas wuxuu yidhi anigu dadka ilmaha yaryarkaa ayaan ku jiray mana dareemin xikaayada iyo camaliyadda meesha ka dhacday ilaa cumar qiraa'adiisa oo go'day maahane mar allaala markuu cumar adkaysan waayey gacanta ayuu gadaal u taagay cabdiraxmaan ibni cawf ayuu soo qabtay oo horay markaa keenay si uu asaga u dhammaystira salaada ummadda ma faaruqin oo ay waa ku jiraan cumar meesha ayuu jiiftay ninkii majuusiga ahaa intuu safafka soo dhex maraayey meebada ama midida uu watay labada dhinac ayay afka lahayd ilaa iyo 12 qofood ayuu soo dilay mar allaala markuu bannaanka soo gaaray uu damacsanaa inuu baxo nin hubusta wata ama go'weyn ayaa ka hor yimid kii ayaa ku qabtay mar allaala markuu arkay mididaan oo dhiigle ninkan oo wata intaa ka gadaal markuu is yidhi waa lagu qabtay ayuu nafsadiisa gowracay ninka oo wuxuuba dhintay cumar hortiis cumar mar allaala markii salaada laga baxay ayuu yidhi ii soo raadiya qofka i dilay
وحال سوء قاذي أبو لؤلؤ المجوسي إنه مركا أها إلهي أيام مهد إسكالة قيري إذا أنكو سبب قف مسلم أيو يري عمر رضي الله تعالى عنه والله سوء قاذي مركي لسوء قاذي أولا كيني قريقيسة oo gurigiisa la keenay dadku waa ka daba socdeen waxaa la siiyey casiir iyo shay la cabo meeshii midida ayay ka soo baxday xaaladdu markay meeshaa gaartay waxaa la ogaaday cumar qaar ama xaalad khatara inuu markaa ku jiro ayuu markaa ogaaday wuxuu u diray nin wiilkiisa cabdullaahi ibnu cumar oo yidhi bax caaisha soo weydii in meesha ka bannaan nebiga aniga laygu duuga iyo in kale caaisha way u ogolaato waxay tiri anaa isugu talagalay laakiin waa u fasaxay sidaa darteed ayuu cumar yidhi inay iga xishoonaysaa dhici kartee haddaan dhinto oo janaasadeeda la qaada mar labaad weydiiya hadday ii ogolaata igu duuga haddaysan ii ogolaaninna baqiicii qubuuraha muslimiinta i geeya cumar markuu dhintay waa la qaaday meeshaa la geeyey caaishaa fasax looga qaaday ayaduna way u ogolaatay sidaa darteed ayaa nebiga iyo abibakar iyo cumar saa ay iskula duugan yihiin magaalada madiina nebiga haddaba waa naga dhintee aan dadaalno dhibaatadaasuu soo maray diintaasna rafaadkaasuu u soo maray wafaadkii nebigana meesha ayaan ku soo gebagabaynaynaa wa aquulu qawlii haada waastagfiru allahu lii walakum wabillahi tawfiiq wallahu subxaanahu wa tacala